السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيارتا قيمها بدن أصحابتا شرفتا بدن ميلكستو الدنيا دعالديدا إيا دافيهيدا كتشوكتان وولالكن مصطفى عبد الرزاق أويد الله عيد مبارك عيد العافية سودوادا والاليال انتاني هورنو لا joogtay waana la joogtay intaana cusubna waxaan idin leeyahay fadlan subscribe ta ilaawina like iyo share tana si faafiya si casharkan muhiimka ah ee ay maanta qaadan doono ay uga faa'iideystaan asxaab fara badan oo danaynaysa walaalayaal ama saaxiibayaal muuqaalkan maanta aynu qaadanaynaa wuxuu ku saabsan yahay waxa loo yaqaano live stream waxaad marar fara badan aragteen in muuqaalo live stream la soo galo kuwaas oo muuqaal hore loo duubay laynooga dhigo inuu yahay live hadda socda laakiinse taasi waxa ay ku khashifmataa ama aynu ku ogaanaa in uu hoosta ku soo qoro inuu muuqaalkan yahay live stream haddaba inagu oo ka faa'iideysanayna middaas waxaynu halkan ku baran doonaa sidii aynu u soo gali lahayn live stream kaas oo ka duwan midkii aynu hore u naqaanay live stream kani wuxuu noqon doonaa mid la moodo inuu yahay real life inaad ku jirto real life ama live xaqiiqa ah oo hadda socda oo hadda taagan sidee ku suurtagelaysaa muuqaalka ayaynu kaga faa'iideysan doonaa soo dhawaada haddaba asxaabay casharkan aynu maanta qaadan doonaa waxa uu leeyahay laba faa'iido faa'iidada koowaad waxa weeyaan in aan cidina ogaan karin waxaan aynu ku jirnaa inuu yahay live reality iyo live stream inaan la kala saari karin kaas waa qodobka labaad waxay tahay mararka qaarkood waxaa dhacda in si live ah loo soo galo ama ciyaaro la soo duubo ama madaxweynayaal hadlaya maadaama aynaan inagu joogin goobta live-ku uu ka dhacayo ama lagu soo bandhigayo live-kaas waxa aynu ku baran doonaa casharkan in live-ka socda aynu duldhigi karno live stream laakiinse u eg reality life inaynu goobtii joogno oo kale waxaan idin leeyahay aynu ka wada faa'iideysana muuqaalkaasi soo dhawaada ugu horeyn waxa aad furataa browserkaaga markii aad furatid waxa aad halkaasi ku qori doontaa OBS kadibna marka aad ku dhufato waxa halkan kuu soo bixi doona software-ka aynu doonayno inaynu soo dejisano oo ah midka halkan idinka muuqda markaynu gudaha u sii galno waxa aynu wax ku duubi doonaa ama aynu ku soo gudbin doonaa live-kan wuxuu noqon doonaa Windows maadaama aynaan Mac iyo haysan muuqaalkani hadda aniga wuu iigu jiraa sidaa la ajligeed waan iska kansalayaa markaad adigu soo dejisato waad rangarayn doontaa kadibna muuqaalkaas waxaan jeedaa software-kaas ayaad furan doontaa software-kii waa ka halkan inoo yaala anigu waan rangaraystay waan iigu shumay kadib waynu furan doonaa sida halkani idinka muuqata waxaa hadda inoo soo furmay software-kii markuu inoo soo furmay halkaas ayaynu ku dhufan doonaa calaamadda pluska ku taalo kadibna waxaynu ku dhufan doonaa display capture aniga waan ku dhuftay wuuna iigu jiraa waanad wada aragtaan kadib waxaan soo furan doonaa browserkaagii waxaana toos u tegi doontaa Facebook pagekaaga markii aad tagtid ama uu kuu soo baxo uu kuu soo furmo waxaan doonaynaa inaynu ka soo galno live caadiya kadib marka aynu furano Facebook page-keena ama uu inoo soo baxo
waxaynu tegi doonaa halkaasi ay ku qoran tahay live, halka ay ku qoran tahay live. marka aynu ku dhufano goobtaasi ay ku qoran tahay live, wuxuu inoo soo saari doonaa page caynkan oo kale. markuu page-kani inoo soo furmo aad wada arkaysaan, waxaa halkaas inoo yaala 3 calaamadood oo mid ay ku qoran tahay use stream key iyo use camera iyo use period encoder. inagu waxaynu u baahannahay maanta waa use stream key. stream key markaynu ku dhufano halkan waxaad ku arkaysaan server URL iyo stream key. inagu waxaynu u baahannahay stream key baynu u baahannahay. copy baad oranaysaan oo linkigaas aad inoo qaadi doontaan. markaynu copy nidhaahno waxaynu toos u tegi doonaa softwarekeenii. kadib waxaynu tegi doonaa settings meesha ay ku qoran tahay settings ayaynu tegi doonaa. marka aynu settings ku dhufano waxaynu toos u tegi doonaa stream halkaa ay ku taalo. kadibna linkigeeni aynu sidanay aynu soo copy garaysanay baynu halkani dhigan doonaa. inta aynu iska masaxno kadibna best baynu odhan doonaa. okay, waxaynu taaban doonaa halkaasi apply, then waxaynu odhan doonaa okay. sida aad hadda wada arkaysaan streamkii waynu koobiyeenay, waynu saxnay, dabadeed star ayaynu odhan doonaa stream. hadda waynu daaranay streamkii. waxaynu toos u tegi doonaa page-keenii. halkan aad wada arkaysaan connected waa kaa ah, waa kaa. sidaas ayaynu hadda ugu jirnaa live-kii, laakiinse weli softwarekii waxaynu isku tallaalnay uun page-keenii ee live-kii weli maynaan gelin. halkan ayaynu ku qoran doonaa title-ka, waxaynu u bixin doonaa ama aynu ku qori doonaa baro sida loo galo live stream. baro sida stream live loo galo. waxaynu odhan doonaa baro sida live stream loo galo. waayahay, hoos baynu u degi doonaa. halkaana waxaynu ku qori doonaa intii in leeg baro sida live stream loo galo. then intaa markaynu qoranno waxaynu tegi doonaa go live. live-kii reality-gahaa ayaynu geli doonaa. live-kii realkahaa baynu wada geli doonaa. sidaad hadda arkaysaan waxaynu ku jirnaa live-kii. waynu ku jirnaa live-kii. waxaan haddaba idinku tusaalayn doonaa ama aynu tegi doonaa YouTube-ka. horta sidaa halkan ka wada arkaysaan, halkan sidaad ka wada arkaysaan viewerskii iyo reactionkii iyo clipkii iyo commentkii wax kasta halkan uu kugu siinayaa. waxaad arkaysaan inaynaan weli cid ina aragtay ama ina comment garaysay aan jirin. waxaan tegi doonaa YouTube-ka. halkan waxaan ku haynaa ninka loo yaqaano Asad Xaajiyow ee YouTuberka. waynu balaarsan doonaa. kadibna waxaynu odhan doonaa waynu furan doonaa videogiisa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. saad wada arkaysaan hadda waxaynu ku jirnaa live-keenna ayaynu ka soo saaray. sidaad wada arkaysaan hadda muuqaalkaasi si live ah ayuu u baxayaa, noo socdaa, aan u daawanaynaa. sidoo kale kama muuqdaan calaamadaha indisheegaya oo dhan ee ahaa in lagu kala karo. إن أن سكيرسه أن أوتوا منير آخا معناه منير أصغر حافظة يودجيه هاي حافظة لما ذكره كارلا محمد يا الله يا
insha Allah laakiin waan sama ahan iskuulka ayaan reality. xogaa kadibna waxaa weydiisan doonaa ama muniir in ay i fasaxaan ama aan booqdo marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin asxaabay muuqaalkina intaas ayuu inoogu egyahay waxaan rajaynayaa inaad ka wada faa'iidaysateen muuqaalkaasi kooban waxaanan insha Allah rajaynayaa inaan mar kalena idin tuso bal sida mobileka looga soo geli karo maadaama uu kani ahaa aynu isticmaalaynin laptop iyo software muuqaal kale oo insha Allah aynu kaga faa'iidaysan doono bal sida mid kan la mid ah aynu uga soo geli karno mobile inagoo haysana aynu insha Allah isagana aynu ka wada bogan doonaa aad baad mahadsantihiin waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo